بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. لك الحمد يا رب حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. صلى عليك اللهم يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإلا سعانات سلامتها كذب محاضرة دعاوى إنوبة لنسانين أيان هلكن إن شاء الله waxaa ilaahay iga garadsiiyo ka sheegi doonaa biidni illaah anoo allah kaashanaya. muxaadarada cinwaankeedu waxaa weeye warbaahinta iyo islaamka. warbaahinta iyo islaamka, الإعلام والإسلام. maxay daaran tahay? waxaynu doonaynaa muxaadaradan ama ku eegi doonno in sha allah inaynu warbaahinta saarno miisaanka islaamka, qiimayno warbaahinta, aynu warbaahinta iyo qaabka ay u shaqayso ku salayno islaamka oo ah diinteenna. sababtoo ah warbaahintu ama aan idhaahdee nolosheennoo dhan maxyaana wa mamaatana yaa iska leh lilaahi rabbi alcaalamiin. nolosheennoo dhan dacal kastaba waxaa weeye allah ayaa iska leh. waa inaynu ku salaynaa arrin kastaba islaamka ku salaynaa. marka ugu horraysa waa inaynu ogaanaa oo isxasuusinnaa xikmadda allah kownkan inoo keenay oo ahayd بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وحوية جن يا إنس يا مخلوقات كأردن وحكى الله أبو ري متران إن الله نعبدان. بركان نرشه إنه أردن أما هالنقطة ورباهن، أما هالنقطة جناسي، هالنقطة جول، هالنقطة وحبر الشو، هالنقطة سياسة. وين نرشي النورن كسر إسناء تا إسلام. من هني نبو هو نرشة لقولك ميو إيو إسلام ككلا سارة دين إسلام كنا ساينو ويرميس وحين النهاي dad noloshooda oo dhan ku salaynaya islaamka. marka mawduuca sidaas ayaynu u doorannay oo ah warbaahinta iyo islaamka. warbaahintu waa maxay? waa la adeegsadaa eray kale ama erayo kale oo waxaa la yidhaahdaa saxaafad iyo weedho kaloo badan. war
iyo baahin ayay warbaahintu ka kooban tahay laba eray ayay ka kooban tahay war iyo baahin warka waynu naqaanaa baahintana waynu naqaanaa warkii ayaa la baahinayaa oo meeshii uu ka dhacay ama laga yidhi ku ekaan maayo waxaa la gaadhsiinayaa cid kale waa la faafinayaa waa la fidinayaa waxaa la fidinayaa ama la faafinayaa wanaag iyo xumaanba way yeelan karaan soo ma waxaa la baahinayaa warkaa la baahinayaa yacni sayi'a iyo xasana labadaba wuu noqon karaa sidaa awgeed ma sahlana arag inaynu ka aamusno ama aynu dhinac marno ma aha warbaahintu labadaa weero si aynu u fahno aynu u dul istaagno ayaan doonayaa inaynu ogaano way aynu taariikhda dib u milicsanno aynu tallaabada dib ugu yar noqonno herarkii kala duwanaa ee ay warbaahintu soo martay warbaahintu ma mid imika dhalatayba ma muuqbaahiyayaasha ma wargeysyada ma websaytyada mise warbaahintu waxay jiri jirtay ummadihii horena warbaahin bay lahayd waxaa laga yaabaa inay qaar inaga mid ah ay ku soo dhacdo maskaxdiisa warbaahintu inay tahay mid dhalatay iminka markuu ka fakero idaacadda iyo muraayaddii laga daawanayay warka inay tahay mid iminka dhalatay laakiin warbaahintu hore ayay u jirtay weji kale ayay lahayd qaab kale ayay lahayd heerar kala duwan ayay soo martay horumar ayay gaadhay warbaahintu halkay soo martay taariikh fog aadi mayno xilligii nebiga sala allahu calayhi wasalam ka horreeyey aynu dib u yar noqono xilligii nebiga sala allahu calayhi wasalam ka horreeyey waxaa la odhan jiray casrigaa ama waagaa casruljaahiliya waa casri lagu jiray mugdi dalaam daamis lagu jiray oo ahaa dagaal oo ahaa ka xoog badan inuu cuno ka tamarta daran alqawiyu ya'kulu daciif carabtu xilligaas yacni fasaaxadda iyo aftahannimada waxa ay ka gaadhay heer tusaalayaal loo soo qaato oo ay ku faani jireen waxaa warbaahin xilligaa loo adeegsan jiray gabayada ayaa loo adeegsan jiray waxaa loo adeegsan jiray khudbadaha sanadlaha ah suuqyaa jiray sanadlaha oo ay carabtu isugu min jirtay halkaas oo ay ka jeedin jireen gabayada ay ka khudbadayn jireen rag caana ayay ku lahaayeen dhinaca gabayga rag caana ayay ku lahaayeen dhinaca khudbadaha waxaa laga yaabaa inaad xasuusataan almucallaqaat asabca aw almucallaqaat alcashr gabayadii la odhan jiray ee lagu soo xasuusto raggii waagaa caanka ahaa sida imru'ulqays alkindiy ee mucallaqadiisu ay ka bilaamayso qifaa nabki min dikra xabiibin wamanzili bisiqin liwa bayna adakhuuli faxawmi iyo cantara bishadaad هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهمي يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عبلة واسلم waxay haayeen gabayadaasi gabayo raad reebay xumaan iyo wanaag barahaa gabayada xilligaa waxaa loo adeegsan jiray qaabkan warbaahinta dagaalka warbaahintaa loo adeegsan jiray dagaaladaa lagu geli jiray oo loogu diyaargaroobi jiray dadkaa lagu dhiirin gelin jiray
dadkaa lagu kicin jiray inay dagaalamaan oo ay wax iska celiyaan waa la isku ammaani jiray waa la isku caayi jiray waa la isku niyad jebin jiray waa la isku hoojin jiray warbaahintu xilligaa waxay ahayd gabayadaa aynu soo sheegnay waxay kaloo ahayd khitaaba aw alkhudba waa la khudbadayn jiray oo suuqyay lahayd suuqyadii caanka halkaa carabtu ay isugu iman jireen waxaa ka mid ah suuqu cukaab oo laga khudbadayn jiray nin caana ayaa lagu dhigtaa waxbarashada marka khudbadaha laga hadlayo jazaak allah qis bin saacida ninkii khudbadayn jiray khudbadihiisii lagu dhigta dugsiyada qis bin saacida ayaa ka mid ah waaye carabtu markaa xilligaas dagaalka ay adeegsan jirtay intaanay dagaalba qaadin ama dagaalka gadaashii wuxuu ahaa warbaahinta dhabta ah ee xilligaa jirtay gabayada iyo khudbadaha lacag baa lagu siin jiray ragga gabyaha waa la ilaalin jiray waa loo diri jiray inay wax caayaan oo wax ammaanaan iyaguna waxbay ku qaadan jireen ama qabyaalad bay wax u gabi jireen xilligii nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaynu soo gaadhnay xilligaasna oo qur-aankuba ahaa mucjisada nebiga sala allahu calayhi wasalam ee ugu weyn ee la siiyey wuxuu u yimi nebigu sal ly slam ummad aftahannimada iyo fasaaxadda ku faanaysa oo u arkaysa inaanay cidi ka aftahansanayn qur'aan baa la keenay qur'aankii waxaa lagu yidhi ama lagu careeyey inay keenaan aayad way awoodi kari waayeen inay keenaan 10 aayadood suurad waxba way awoodi kari waayeen ummaddaas saas ku aftahanka ahayd ummaddaa ku faanaysay luqaddooda ayaa awoodi kari weyday inay qur'aan la yimaadaan xilligii nebiga sala allahu calayhi wasalam warbaahin sidii warbaahintii oo kale ah ayuu lahaa rag lo odhan jiray waxa weeye waxay ahaayeen raggii nebiga sal lla ly slam u ahaa gabyaaga waa saxaabada cabdullaahi bni rawaaxa oo kale xasaan ibni haabit ayaa ka mid ahaa raggii wanaagga ka talin jiray ee ku gabi jiray ee gabaygooda u adeegsan jiray khayrka saxaabiga xasaan bin haabit wuxuu ahaa saxaabi markuu islaamay da'weynaa oo hore xilligii jaahiliyadda u gabi jiray soona gaadhay islaamka oo mukhadram ayuu ahaa waxaan soo gaadhay xilligii madiine iyo ee ay saxaabadu ay gabi jireen cabdullaahi bni rawaaxa oo madiina iminka ku sugannahay aynu dib ugu noqonno bidaayata dacwadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii uu nebigu sala allahu calayhi wasalam la amray inuu arrinka shaaciyo oo uu sheego oo uu dacwadda gaadhsiiyo ehelkiisa iyo qaraabadiisa iyo cashiiradiisa ugu dhow ayaa waxaa ku bilaabmay dagaal nebiga sala allahu calayhi wasalam dagaalkaasi muu hayn dagaal loo adeegsaday hub dhiig lagu daabiyo dagaalka nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisa loo adeegsaday wuxuu ahaa dagaalka warbaahinta ayaa loo adeegsaday dacaayado ayaa loo faafiyey ka dhan ah nebiga sala allahu calayhi wasalam si aanay risaaladda ama fariinta nebiga sala allahu calayhi wasalam aanay meel fog u gaadhin xilligaasoo ay gaaladu u arkaysay dacwadda nebiga sala allahu calayhi wasalam jiritaankooda kayaankooda inay halis ku tahay ayaa waxay samaynayeen inay ka hortagaan nebiga sala allahu calayhi wasalam oo ay ixbaar ku sameeyaan inta aanay faafin dacwadda rasuulku sala allahu calayh wasalam si ay nebiga u niyad jebiyaan si ay carabta u imanaysa aanay u raacin
markii waxay ahayd meel ay carabtu isugu timaado sanad kasta oo waxa ku yaalay baytul xaraam masjidul xaraam masjidka kana ay kaabadu ku taalo oo loo yaqaano masjidul xaraam ayay carabtu u soo xajii jirtay masaajidkaas oo dhidibada u taagay nabiyullaahi ibraahim iyo inankiisa ismaaciil calayhim assalaam halkaasay carabtii ma jirtay qisa ayaynu ka soo qaadanaynaa sidii nebiga sala allahu alay wasalam warbaahin ahaan loogula dagaalamay qisooyin badan abulahab oo gaalnimo ku dhintay gaalnimona ku noolaa oo ahaa nebiga adeerkii oo ay suuradina ku soo degtay ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam marka uu carabta imaanaysa xajka si uu dacwadiisa ugu sheego uu ka hortegi jiray nebigu sal ly slam siduu arrinkiisa ugu sheegto oo uu yidhaahdo waxaan ahay nebiyun mursal nebi la isoo diray baan ahay iraaca oo uu xaqa u sheego xaqa uu ku sugan yahay iftiinka uu u tilmaamo mugdigana ay ku jiraan si uga saaro naxariis buu ugu hortegi jiray carabaha si uga helo heel cid uu muxuu ahaye uu raaco oo u heelisa oo deegaan ahaan iyo tir ahaan iyo awood ahaanba ay garab u siiyaan ilaa iyo inta uu gaadhsiinayo fariintiisa ummadda oo dhan abulahab markuu nebigu sal ly slam baxo abulahab ayaa nebiga dabageli jiray waxaanu ku odhan jiray carabta markuu nebigu sal ly slam ka dhaqaaqo ama waa buu uga horran jiray ama waa uu ka dambayn jiray ha rumaysanina inankan aniga aqaano adeer baanu ahay waxa weeye maaha nin caadi ah waxbaa ka siiya waxaanu idiin sheegayaa waxba kama jiraan bal ka warran adeerkaayo ku dabagala adeerkaa oo aad ka harsan weydid sow dad badani run u qaadan maayaan inankan adeerkii ayaa ku sheegaya oo waxa weeye tolnimada ehelnimadaas ayaa dagaysa dadka soo maa waxaa la rumaysanayaa adeerkii waxaa la odhanayaa adeerkii been ka sheegi maayo dacaayado badan ayay ka faafiyeen abulahabkaas iyo gaalo badan ee nebiga sala allahu alay wasalam dacaayado badan oo qur-aanka lagu soo arooriyey ayaa laga faafiyey maxaa ka mid ahaa waana dacaayadaha laga faafiyo dadka samaha ka taliya dadka wanaagsan si shakhsiyaddooda loo dilo oo aanay u awoodi karin inay gaadhsiiyaan farriintooda wanaagsan dadka ayaa waxaa laysku dayayaa in qofka shakhsiyaddiisa la dilo si aan loo raacin maxay ka sheegeen nebiga sala allahu alay wasalam waxay ku tilmaameen oo qur-aankuna sheegay inuu yahay saaxir mid wax sixira oo beddelo dadka sixirkana waad garanaysaa iyo tacriifkiisa marka la qeexaya sixirka waa saaxir waa falalow iska ilaaliya waa kaahino waa falalow iska ilaaliya waa gabyaa waa majnuun waaliya ka warma saddexdaa shay iyo kuwo ka daranba waa laga faafiyey nebiga sal slam marka anigoo sabtidii dhaweyto laascaanood soo gaadhay markay reer laascaanood igu yidhaahdaan ninkaa hebel iska ilaali waa falalow ay rag badan igu yidhaahdaan rag badan oo waxgaradkii cuqaashii salaadiintii reer laascaanood ay igu yidhahdaan ninkaa hebel iska ilaali waxa weeye waa sixiroolayaan ku sixrin maxaan samayn lahaa ama maxaad samayn lahayd soo ismaad ilaaliseen yaanna waan is ilaalin lahaa soo maha toddobaadka aan joogo ninkaasaan iska ilaalin lahaa si aanu ii sixrin marka la yidhaahdo ninkaas wuu waalan yahay iska ilaali markuu markaa ninkaas ii yimaado ee maqaaxay la fadhiisto wax ii sheego shaahayga umaan iska cabi lahaa hadalkiisa waxaan ka soo qaadi lahaa nin waalan oo wax ii sheegaya soo maaha marka lagu yidhahdo ninkaas waxbuu akriyaa una waxiis waa gabay wax kale maaha
وقابل يقول شيء وحي ساعة كيلاني وحاس ما كسوق هذا له ودجال حن أو ورباهنين حين كهضلنا هيراركي كلا دوانا أي ورباهين تصوم مرتين إيوه النبي صلى الله عليه وسلم إيوه صحابة ديسة ورباهنهان لو قلت دجال مي قرآن كنا وكشكي نبي قال له ما حل قرين إن لقيت المامي مجنون يا ساحر يا شاعر يا كاهن قرآن أياك ما هي كورمي وأنا عادة إلى هايين قالوا وإن النبي يدي هراء أي كل ده قال لهم يشرين قابكاس